بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan rabnaa inaan ka hadalno duruusta xanaha taasoo faa'iido u noqon doonto dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno ama aan ku bilowno wax loo yaqaano camoolnimada ama blindness-ka ama wax loo yaqaano qofkaan dhahno waa indhoole. Camoolnimadu waa xaalad qofka soo wajahdo taasoo qofku uusan arkin waxba iftiin ha ahaato ama humaag. Camoolnimada hal il ay noqon kartaa ama laba il waa lagu tilmaami karaa. waxaana sababi kara dhaawac indhaha ugu dhaca ama cudur indhaha ugu dhaca ama xaalad qofku ku dhashto inay kartaa. Camoolnimada aan ka hadlayno 80% waxa uu nugul ama ay ku dhacaan inta badan dadka da'dooda ay ka weyn tahay 50 sano. Si guud ahaan marka ugu hadalno camoolnimada caalamiyan 300 milyan ilaa 400 milyan dadka ku nool caalamka oo kamid ah waxay la dhib yihiin waxa loo yaqaan visual impairment ama aragti yari. 50 milyan oo dadkaasi kamid ah waa camooleyaal ama dad loo hogaamiyo. Camoolnimada waxyaabadan ayaa sababa sababaheedana waxay ku kala duwan yihiin hadba nolosha dadka iyo deegaanka. Haddii aan soo koobno sababaheeda waxa uu waaweyn infectioniska caabuqyada indhaha ku dhaca iyo injurieska dhaawacyo culus. sidoo kale waxa sababa wax loo yaqaano uncorrected refractive error aragti yari xilligeedii wax laga qaban waayo. waxa kaloo sababa wax loo yaqaano glaucoma ama barajirka indhaha uu ziyaado ama cudurka ee Soomaalida u taqaano biyaha indhaha gala. sidoo kale waxa sababa wax loo yaqaano cataractiga ama cadka indhaha fuula. sidoo kale waxa sababa wax loo yaqaano diabetic retinopathy ama cudurka macaanka ama sonkorowga. sidoo kale waxa sababa wax loo yaqaano age related macular degeneration taasoo ah shabakada dambe oo isbedel ku timaado taasoo loo aaneynayo ziyaadada qofka da'diisa ku timaado. dhammaan sababahan aan soo sheegnay dhammaantood 85% waa sababo wax laga qaban karo waa shardi haddii ay helaan ama ay la kulmaan daryeel ku filan iyo waqti ku munaasab ah. dhammaan sababahan aan soo sheegnay xalaqooyinka